salaadiinta Soomaaliland markaanu hadda xaaladdu halkay marayso ka baaraandignay markaanu telefoon ku wada hadalnay markaanu wada tashanay ciidamada qaranka waxaanu faraynaa inaanay ka amar qaadan xukuumadda tan aniga iyo wixii dawladda jirana waanu soo baxaynaa waa soo galaynaa gudaha iyadoo aad ogeyd oo salaadiintii la kala diray oo cid walba la kala diray waa arkaynay inay deeqadani soo socoto waa arkaynay madaxweynaha iyo saaxiibkiisa arrimaha guduhu inay ahayd waxay u hamuumayeen madiibadihii dhiigga ahay hore shacabka u cabbi jireen ilaa iyo maalintii halganka loo baxay dhiiggii shacabka ay u barteen inay cabbaan inay u xiiseen oo la arkayay inay u hamuumayeen saaka waxaa muuqata shacabkii Soomaaliland mudaharaadkii ay ogolaadeen shacabkii oo si salmiya xarumihiisii ku socday inay rasaas kala hortageen lixda gobol ee qaranka inay rasaas lagu bilaabay maanta natiijadii inay noqotay 8 dhimasho oo gobol walba meediyaallo oo shacabigii karaamada lahaa maanta dhiiggiisa dastuurka iyo diintuba ay nasaaday ilaalisay in maanta si ciyaar inta loo laayay ugu yaraan 100 qof oo dhaawac culus jira ay isbitaalada jiifaan 200 iyo in la mid maanta ay jeelasha ku jiraan si xorriyad darra oo aan wax alla waxay ku xiriireen iyo dadka wax lagu laayay jirin madax dhaqameedadu markay arkeen xaaladdu halkay ku socotay iyo go'aanka xisbiyadu qaateen iyo xaaladdu dadku wajahay markii la waayay break lagu qabto xukuumadda tan markii la waayay cid alla cid ay isu taagto madax dhaqameedku wuxuu bilaabay go'aansaday sabtida inay isu yimaadaan magaalada Hargeysa in la isugu yimaado in go'aan adag laga soo saaro inaan lagu haleyn karin xukuumaddan inay dastuurkii ka gudubtay in waqtigii ka dhamaaday inay bilowday dhiiggii dadka sabab la'aan inay ku leeynayso maadaama ay joogin golayaal sharci oo la xisaabtamaya xukuumadda oo ay ahayd maadaama ay doorasho gaarsiin wayday maadaama ay amnigii shacabka iyadu lindi ku tahay maadaama aanay jirin gudoomiyayaal sharci oo baarlamaan iyo dowlad guurti annagoo raggii ciidamada qaranka ururiyey annagoo raggii u kala dhigay ciidamada qaranka waxaanu faraynaa inaanay ka amar qaadan xukuumadda tan inay shacbigooda intii dhimatay wax dambe aanay dhaadan dhiigooda inay salaadiinta go'aanka sugaan sabtida salaadiintu way fadhiisanaysaa xisbiyada qaranku fadhiga salaadiinta ee sabtidu muxuu ku salaysan yahay muxuuse ujeedkiisu noqonayaa iyo waxa laga sugayo inay ka soo baxaan waxay noqonaysaa dalka kan in la dhiso sida uu Faysal Ali Waraabe ku dhawaaqay cid gaarsiis dawlad taykeera in la dhiso oo gaarsiisa doorasho iyo nidaamkii ay ugu soo noqotay maadaama ay tani ka dhamaatay waqtigeedii kala midaysan in dalka kan loo helo maadaama dalkii ay taagan tahay ay qabsadeen rag aan cidnaba ixtiraamayn shacbigiina meel walba dhaawiciisii iyo dhiiggiisii uu qulqulayo maanta waxay noqonaysaa shacbigu mar dambe ma mudaharaadi doonaan iyagoo primbitita shacbigu waxay noqon doonaan inay isku xoreeyaan hubkooda qaataan waxay noqon doontaa inaanu amarro ciidamada qaranku inay shacbiga sidii maantaba burca ka dhacday inay shacabka garab galaan laakiin boqor dad badani oo hadalkaaga dhegeysanaya waxay isweydiin karaan ma aragti waxa weeyaan u gaaraba boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow mise waa go'aan waxa weeyaan afkooda ku hadlayo madax dhaqameedka iyo salaadiinta Soomaaliland ee soo hadal qaaday marka mawduucaasi aad ka hadlayso telefoon isku wada maqalay majoritigoodii oo telefoon ku qaadanay waxa go'aan laga ay sabtida la isku yimaado aniga iyo wixii dawladda jirana waanu soo baxaynaa waa soo galaynaa gudaha waxa weeyaan go'aan dalka kan lagu badbaadinayo salaadiinta hormuud ka noqonaysa mana noqonayso talada inaanu cidda noo daba fadhiisano annaga hore shir ugu qabanay sidii suugaan ayaan la sheegay ayaan la Maxamed Xamdulle sidoo uu sheegay shalayto oo Cabdiraxmaan isagaan muddadii ka dhamaan baa gacanta laga qabtay maanta kuwa iyagay ka dhamaatay gacantaanu ka qabanaynaa salaadiintuna way soo imanaysaa xisbiyada qarankana waxa weeyaan iyaga ayaa mudan inay dalka taladiisa maanta cidda legitimate ee maanta dadkan xisbiya qarana ee maanta inay talada iyaga iyo salaadiintu hogaamiyaan bay noqonaysaa waayo waxay ahayd ciddii ciqaabi lahayd madaxweynaha ee impeachment saari lahayd talada dalka meediga golayaasha qaranka waxa weeyaan
إلا مانتا كما يهدي قدومياشي كما يهدي هل كما مغطاء الصوة تلا لقوها اللي هي ما جبتو عندي حجابنا إذا حكومة واحد سبيل واحد مدهي قلك بلقونا سيدا كمتي تشيري كرو وحين غوريسا إن هبك الله يسوقاتيه طلو أن كوه قامل ذلك أهل قال صفت الله لكن بقر مركع سيدا وهذا ليسو هذا طبعا شيئين سلادين تا فكرة كم ديسيين أي تاي هذا الكمعارض كنا ودقنا سيداسي إسلا صفت يكون كا سولان غوريسو مركع إن سلادين تا سومالي لان أي درف لصفنا أيام درف يدي سياسة arrimahan isku hayay ilaahay ayaa aayadii quraanka uu ku sheegay فاصلحوا بين أخويكم إن بقت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تنتهي إلى أمر الله وحويا إلا لا صفتوا ولا دجال قالوا وعند حاجة كنت هقول الراعي الغريسة مدحوينا والله لا هضلي والله دمري والله لا هضلي والله فريسي والله جاب فريسي كارث بلسي ما تمنى غير كريسو سيداد حضور وشعبك كلامه لها إني حبر لقال الداران عيد عسكري وحكمين سبب لقود ليجين عيد هم غالي تيجين عيد تايه لقود تيجين سبب الله ضد الغالي كان يديك ومنحوين مصدقه يا محمد كاين يقولني ولي والله باطل إلى إنه ليه عن ضرورة الصعان كريم وهو لأنه إنه يكون حرقودان بس كلمة دك عروبتي الصغيرة كلها يا محمد كاين مصدقه عيد أخبارك الضبط كأنك مسؤولك أنك على دوسنا وحوي أنتي الدكتور كي شرطي حسب حكم كودي بين واختلافين ذلك وحوي المانتا وحتاجات وقت أعمال لقد الله وقت جودي الوضع الماضي خلق رمضان لقايا صدق ولا قبل أبنا والله فريساني وأنا أنصر عزيز كم